السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد كورس كنا Adobe Illustrator. عشر كنا ما أنت وكسب سيء هاي ميت كبيدة وحيابا مهم سنة عاون يقفك ديزاينر كا وويب سايت لو يقانو فريبيك كاسو كعاون هي إن تكهشوا أي كندا أو بهانتا يساعد ديزاين كوسم يستو أما مرة قارة أو بهاناتو شباب قار أما وحيابا قار كعاون ديزاين كإنه قرح نادو سيادو هيشو waxaad ka degsan kartaa website-ka loo yaqaano Freepik. Marka maanta waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka Freepik loogu soo degsadaa icon ama file oo Photoshop ama file Illustrator ah. Ila socdo. Wareen waxaad booqataa Google Chrome-hada. Halka hore waxaad ku qortaa www.freepik.com. Marka inta ku qorto freepik.com waxaa ku soo baxaysa interface-kan halkan sida ka muuqato waxa u jeedaan graphic resources for everyone waxaad ka helaysaa any resource oo u baahnaato graphic design data waxaad ka helaysaa file ka samaysan vector ama ka samaysan photo ama ka samaysan PSD vector macnaheedu waxa ka wadnaa file ku soo kacaya as Illustrator file ah photo sawir hada u baahnaato iyo PSD oo ah Photoshop. Marka maanta waxaan rabnaa inaan sameeyno inaan ka soo degsano program ama file Photoshop ah ama vector ah. Ka soo qaad waxa u baahnaa kale business card ayaad u baahan tahay inaad ku rafato kadib waxaad haysaa search ama enter waxaa ku soo baxaysa shaashadan halkan ka muuqato halkan waxaa ku diyaar ah any business card ay u baahnaato design-kiisa hadda soo degsato waxaad la tagaysaa Photoshop-ka ama Illustrator-ka isla halkaas ayaa shaqada ugu qabsanaysaa adigoo aan u baahnayn design-kii inaad diyaariso design-ka asigoo ku diyaarsan ayaad halkan ka dooranaysaa oo kaliya saa u doorato marka halkan waxaa muhiim ah inaad ogaato category wuxuu ka kooban yahay afarta qaybood ID card-ka ama business card-ka ama shayga aad inaad soo degsato ma waxa u rabtaa as vector oo Illustrator aan ma u rabtaa as Photoshop as photo sawir caadi ma u rabtaa PSD Photoshop ma u rabtaa ama icon ayaad u rabtaa marka aad rabto Photoshop waxaad tagaysaa PSD فعلش waxay isu bedelayaan waxa ku soo baxay oo kaliya inta file ee PSD ku soo kacayo ama Photoshop hadii aad doorato vector oo aad PSD jack ka qaado waxa ku soo baxayo inta file ee ku soo kici karto Illustrator marka mid kamid ah aad doorato inta waa muhiim qaybta inaad ogaato licensing waxa waaye premium iyo free premium adarato waa wixii lacag hada u baahnaato inaad lacag aad haysato inaad ku iibsato design-kii ku qanciyo waxa ku soo baxay premium hada doorato waxa ku soo baxayo kaliya inta lacagta oo si ku ogaan kartaa waxa saaran calaamadaas jaalaha calaamadaas ayaa saaran calaamadaas waxay ku tilmaamaysaa lacag inay yihiin design-kan aad aragtay inay lacagtay ku tilmaamaysaa hadii aadan lacag haysan waxaad doorataa free jeeg waxa ka qaadaa premium free wixii ah ayaa halkan lagu soo taxaya waxaad doorataa free marka doorato waxa ku soo baxayo design-ka aad u baahan tahay asigoo free ah sida ka muuqato free-ga calaamadii hadaad lacagta premium tilmaamaysa calaamada noocan aheed hadda ma saarno intan oo aad u jeedo hoos ilaa hoos u socod waa free waa soo degsan kartaa design-ka sidiisa ah ayaad u soo degsanaysaa waxa kaliya aad ka bedeli kartaa waxaad u baahnaato qoraal hadaad rabto inaad ka bedesho waad ka bedeli kartaa hadaad rabto inaad color ka bedesho idana sidoo kale waad ka bedeli kartaa marka hoos ka soco ilaa hoos design-ka ama naqshadii ilaa hoos u soco design-ka ama naqshadii aad u baahnaato aad ka hesho ayaad dooranaysaa kadib waa soo degsanaysaa marka page badan ayuu leeyahay hoos u wad ilaa page 1 2 3 4 ayuu ku soo bandhigayaa design-kan waxa uu ka kooban yahay ilaa sida u jeedo ilaa 595 page ayuu ka kooban yahay page koowaad markuu ku soo baxada ku qanci weydo waxa dhaysaa next page
page ka labaad ayuu ku gudbinayaa oo aad ka fiirin kartaa ama aad ka heli kartaa design kale oo cusub. page 2 waxaa ku soo baxaya design kale oo ka duwan inta ku soo aragtay page 1ka. designada marka midka aad rabto ee ku qanciyo ayaad u baahanaataa ilaa waxaa wadi kartaa inta ku sheegay 595 page. marka adiga intaas hadaad wadi karin designkii uu macquulsan ee aad isleedahay designkan ayaa ugu fiican ayaad download lahanaysaa oo aad degsanaysaa. marka hadda waxaan dooranaynaa mid ka mid ah designada aan meesha halkan ka aragnay saan iskaga soo koobno aan u degsano designkaas. waxaan noo doorataa midkan business cardkan ayaan isleedahay waa midka ugu fiican. markaan click ku siiso waxa ku soo baxayso halkan ay ku qoran tahay download marka ku dhufato sidoo kale hadda waxaa lagu weydiinaa lacag maarata mise free. waxaa noo doortaa free download. sida ka muuqato halkan hoose downloadka ayuu noo wadaa tirooyin ayuu halkan kusoo qoray. tirada marka uu dhameeyo waa micnaheedu waxay la mid tahay waa soo degsatay. sida ka muuqato waa noo dhamaaday downloadku uu dhameeyay. waxaa doorataa isha yar fur kadib waxaa dhahdaa show in folder saad u aragto folderka uu ku jiro. kadib markay inta ku soo baxdo qoraalkii ama faylkii aad soo degsato aad hesho waxaa dhahdaa double click wuxuu ku furayaa illustrator ahaan. su-aashaan noo soo bandhigay iska dhex cancel leh. kadib halka markay ku soo baxdo waxaad doorataa faylka. marka qaar faylka wuxuu ku soo raacinayaa shape-ka color-ka oo illustrator-ka uu leeyahay. illustrator ahaan ayuu ku soo bandhigaya. marka qaarna wuxuu ka dhigaa white oo EBS ayaa raacsan. kadib midkan noo door sababtoo midkan waa waa JPG waa sawir. qaybtan waa note ahaan text note. marka waxaad doorataa midkan double click automatically wuxuu ku furayaa as illustrator. illustrator ahaan markuu kuu soo kaco marka ayaa la rabaa halkii aad shaqada ka qabsanaysa designadii aragto inaad ka tuuso. waxaa noo dhahdaa close hoos u soco si aad u aragto. kadib halkan waxaa ku muuqato designkii aad soo degsatay oo ku soo kacay illustrator file. haddaa rabto marka inaad wax ka bedesho ama ID-gan ama business cardkan marka hadday aad ka heshay aad rabto company-gaada inaad u samayso sidiisi magaca inaad ka bedesho aad qaadato waa laga fiican yahay. sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadka designada way ogyihiin inaad sideeda usoo qaadatay oo ah qoraalka oo kaliya ka bedeshay. marka waxaa laga rabaa marka designkii aad samaysay iyo midkii meesha ku jira mid kala duwan saa ugu dhigto waxaa wax ka bedeshaad badanaa kalarada uu leeyahay shape-ka. si aad wax ugu bedesho marka shape-ka aad soo degsatay ama shayga aad soo degsatay illustrator file-ka ah waxaad kili ku dhahdaa toolka ama shape-ka. kadib wuxuu u samaysay as group waxaad ka dhigtaa in group right click dheh. kadib waxaa dhahdaa ungroup markaa dhahdo way kala furmayaan. halkan click ku dheh waa group gooni kan waa group kale. sidoo kale loogadaas waa group textidan waa group. marka loogadan iska qaad halkaas gey loogadaada halkan kusoo dhigo kusoo bedelo. shape-kan haddaad rabto inaad wax ka bedesho shape-kan oo kale click ku dheh. kadib waxaad doorataa color-ka u baahan tahay blue oo kale ka dhig. kan oo kale haddaad rabto inaad wax ka bedesho sidoo kale click ku dheh color-ka u baahnaato oo kale soo dooro. kuwana sidoo kale waa sidaas oo kale ayagana waa group waa ka furaysaa right click aad dhehaysaa group aad dhehaysaa. halkan oo kale qoraalkaadna wax ka bedesho haddaad rabto iska qaad qoraalkaada soo dhigo. ushaan oo kale color-ka haddaad rabto inaad ka bedesho waa isla sidii waad ka bedeli kartaa. background haddaad rabto inaad wax ka bedesho kale waad dooranaysaa background waxaa qaadanaysaa color ayo nooca rabto. background noocan oo kale ama kan oo kale ka dhigi kartaa aada nooca rabto. kadib loogada halkaas soo dhigo magacaan waxaan kale nambaradan iska bedel magacyadaada kale ku bedelo. halkaana sidoo kale waa meesha company uu ku yaalo kale kuwaada kale ku bedelo. sidoo kale intana waa sidoo kale. marka intaa markaa samayso kale wuxuu kuu sameeyey design diyaarsan ayaad soo degsatay adoo aan shaqo badan qaban ayaad magacyadaada ku bedelatay kalarada iska bedeshay. kadib waxaa rabtaa marka inaad save garaysato waa sideenii caadiga aan files u save garayeen. waxaad dhehaysaa file kadib waxaad dhehaysaa export
export markaa dhahdo failka rabtaa dhiganaysaa desktopka noo dhig magaca noogu qor marka business card b card soo gaabi kadib waxaad doortaa jack waxaad jack saartaa use artboard marka waa labadii artboard ee front iyo back ee ID cardka ama business cardka uu ku sameysnaa range aad arato mid kamid ah inaad arato waxaad haysaa range click saysansa kadib one marta ama 2 mid dooro one aad arato kala 2 waa iska diraysaa one galiya hadaad 2 rato baahantaan 2 kaliya gelinaysaa labadooda aad arato 1 up to 2 saasa gelinaysaa kadib waxaad haysaa export kadib waxaad doorataa okay marka dhado wuxuu diyaar u yahay inuu sawir ahaan nagu soo muujiyo kadib waxaan ka fiirinaynaa halkii aan dhignay desktopka minimize noo dhekan waa kan faylkii aan soo save gareynay labadooda waa kan front iyo back double click marka dhado frontigana waa kan backina waa kan marka waxaad diyaar u tahay marka si uu easy ama si uu fudud inaad ku samaysato business card ama shay kasta u baahnaato halkaas ayaad ka helaysaa oo kaliya just magaciisa halkaas ku qoraysaa haddaad rabto inaad wax ka sii badbadisho kale meesha ku laabo haddaa u baahnato kale shape-kan kale inaad yareyso waa soo yareyn kartaa sidoo kale kana waa soo yareyn kartaa haddii ku qanci waayaan micnaha size-kooda sidoo kale waa save garaysanaysaa marka casharka illustrator-ka marka aad ku shaqaysanayso ama Photoshop marka aad ku shaqaysanayso website-ka ugu fiican ee ku caawin kara ee shaqada ku fududeyn kara waa inaad wax ka soo degsataa freepik.com wax walba ka helaysaa marka casharkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan filayaa in casharkan aad ka faa'iideen aadna baraatika badan aad samayn doonto taan aad u mahadsantihiin aad billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh